waxa loo yaqaano header ama footer sida loo soo geliyo. Header waa ciwaanka xagga sare buugga kaaga soo muuqanaya, xaggaas sare kusoo galaya. Footerkuna waa midka xagga hoose soo gala ayaa loo yaqaanaa. Marka si aad labadooda usoo gelisid, laba had baynu sheegi doonaa. Marka ugu horeysa waxaad tegeysaa insert tab baad tegeysaa, kabacdi waxaad tegeysaa groupka loo yaqaano header and footer. kaad doonaysa inaad soo gelisaa dooranaysaa. Headerkan ku horeysiinaa qoraalka xagga sare mara ah. waxaan leenahay noocyada kaad u baahantay waad ka doorani. intan keenin hoos u jiid saaqood. haddaad intan dhammaantood aad ka wada heli weydidna kaad rabto xaggan iska tag, qaabsaag si gaar ah isu edit garayso. waxaad qori doontaa afartanood isaad ku edit garan doonto haddii aan la yiraahdo. Control A baad taaban, home kaad imaan, farteed bedel haddii aan la yiraahdo. xukuumad ka soo bedeli. sidoo kale waxaad taaban doontaa Control A, Control E oo noqonaysa center ka dhig, ama halkan baad taabani. waayahay waxaad bedeli kartaa farta nooceedii. kalarka fartan isna waad bedeli kartaa. kan word art baa loo yaqaanaa magaciisa. kalarkiisa caadiga maaha, laakiin word art baa inta badan loo yaqaanaa. markaa saasaad ku wadaysaa haddii aan la yiraahdo. hab labaad baad usoo gelin kartaa inaad waraaqadaada halka u sareysa aad double click ku dhufatid 2 jeer, left click weliba aad 2 jeer ku dhufatid. markaa halkan aad magaciisa ugu qori doonto haddii aan la yiraahdo. markaa halkaas magaciisa ugu qori doontaa. saasay kugu noqon doontaa haddii aan la yiraahdo. footerkan saa ku samayn doonaa. headerka waa halkii insert tagnay. iminka footerkan saa ku samaynaa. footerka 2 jeer halkaas u taabo, kabacdi waxaad qortaa magacaad rabtid inaad ku qorto haddii aan la yiraahdo. isna waxaad samayn kartaa halkii baad tegeysaa farta laga hagaajinayay home. saasaad farta ku hagaajin doontaa haddii aan la yiraahdo isagana. Control E oo centerka ah, word art ku soo dari kartaa. asaasay noqonaysaa haddii aan la yiraahdo. markaad ka baxaysid intaas yar ilaaway, labada markaad ka baxaysid ee joogtid hal meel banaan baad double click ku dhufanaysaa. saasaad uga baxaysaa haddii aan la yiraahdo. waxaa ku xigaya page number sida loogu soo daro. page number waxaad tegeysaa halkan loo yaqaano insert baad isaga tegeysaa, kabacdi waxaad iman doontaa halkan groupka loo yaqaano header iyo footer. page number baad dooranaysaa. marka waxaa ku oranayaa halka sare qaababkan ma xagga sare ka dhigaysaa mise bottom oo xagga hoose. marka imika bottom oo kala socon wasi kala duwan mid xaggaas u dhigay, mid xagga mintu halka dhigo page raacinaya. qaababkaas oo dhan waa mid baad dooran kartaa haddii aan la yiraahdo kaad rabto. imika ribbon kaasoo kale haddii soo doorano, page number 1 baa soo galay.
inkastoo laakiin dhib keenayo waxa uu sameynaya footerkii ayaa uu masaxaya oo footerkii ayaa meesha ka saaraya isagoo iska durkin halkaas aad geyn kabacdi hab qoraal ah ayaad footerkaagii si manual ah u sameynaysaa dib baad ugu qoraysaa footerkaagii qaabkaasi noqon doonta hadii la yiraahdo control s control r iyo left l size-kana yare dhinaca bidix kiima so corner u noqdo kan laftiisana hadaad doontid kor yar qaad asaasay ku dhantay hadii la yiraahdo